dagaaladii dhacay shalay waa ay istaageen maanta dagaal ma dhicin nimankii soo weeraray deegaankaas abal iyo agagaarkeedina meesha waa ku jabeen insha allahu tacaala annagana hadda boqol aan ku sugannahay dhammaan dagaalada ciddii ka qayb qaadatay oo ciidamada ay ugu horeyso si loola hadlo loona dhiirigeliyo badbaadada ummadooda sidai ay u badbaadin lahaayeen ayaan u tagnay wixii tafsiilaad oo ay u baahan yihiin si loo gaarsiiyo ayaan u tagnay insha allahu waxaan rajaynaynaa in laga adkaan doono cadowga waa tahay hadda xaggee baad ku sugan tahay adiga wafdigaaga aniga wafdigayga hadda waxaan ku sugannahay boqol gaar ahaan ka xaggee cudur waa gartay marka ka maamul ahaan koonfur galbeed ahaan adinku dagaalka shalay abal ka dhacay wax luga kula heedeen dee dagaalka meeshu ka dhacay waa deegaanka koonfur galbeed ka tirsan gaar ahaan magaala degmada cudur dee kama maqnaan karnama haddii shacabkii la dhibaateynayo inaan ka qayb qaadano waa arrin qasab ah waa tahay waxaad inoo sheegtaa dagaalka marka khasaaraha uu dhaliyey ilaayo hadda intaad adinku ka warhaysaan deecado meel haddii lagu diriro dhibaato la-aan ma jirayso labada dhinac oo ugu horeeya oo diriray dhibaato waa ay jirtaa insha allahu tacaala wixii dheeraadana markii meelaha dhan xogtooda lasoo dhamaystiro baan bixin karnaa insha allah hadda abal yaa ku sugan ma mukhtaar robo baa ku sugan mise kooxdii shabaabka ay soo weertay mukhtaar robo wuxuu ku sugan yahay meeshii marka hore uu kusugnaa uu kusugan yahay nimanka kalena meelaha waa ka dhadhow yihiin laakiin ma tira badna insha allah adinka ciidan maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda soomaaliya miyaa jira oo deegaanadaasi ka agdhow oo laga yaabo in dagaalka ay qayb ku yeeshaan deegaanka ciidanka awalna waa ka agdhowaayeen haddana kama maqnaan doonaan insha allah waxaad inoo sheegtaa qorshaha kale ee maamulka uga degsan arrimahani mar haddii mar hore aad ka dhawaajiseen inaad dooneysaan inaad wadaxaajood la gashaan mukhtaar robow dowladda soomaaliya horey ayay u iclaamisay qof walba oo ka tirsan dhinac walba ka tirsan in lala hadlo insha allah waxaan ku soconnaa un shaqadii dawladda ay iclaamisay un baan ku soconnaa haddii mukhtaar aan la hadlana marka shaqada dawladda ay iclaamisay oo ah in qolo walba oo lala hadli karo cid walba oo nabadda qaadanaysa ama qolo walba in lala hadli karo waa arrin furan mukhtaarna waan la hadlaynaa insha allah dadka aad la kulanteen maxay idin sheegeen xaaladdu soo waa sidee hadda xaaladda waa degan tahay insha allahu waxaana sii rajaynayna inay sii deganaato qorshihiina kale muxuu yahay hadda waxaad ii sheegtay inaad safar tahay aniga insha allahu tacaala waxaan gaari doonaa deegaanada kale ilaahay idinkii wakti dhow oo sida maya waxaan kusoo noqon doonaa aniga magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ah waa tahay wafdiga adiga aad la socotid yaa kaloo kamid ah oo xudur gaari saraakiisha ciidanka ugu sarreysa